صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ها waayo markuu deemka gurigeyga keenayo hooyadii wini weydiinaan habi ku ay hooyadii hadaan habi ku ahayn ha iska joogto marka maxaad ku diidaysaa horta sodohdu way dhib badan tahay run baa fiican in guriga markay ku soo biirto buuq baa ku soo biira waxyaabo aan banbanaaneen bay wiilka u sheegtaa laakiin soo maaha odagaaga hooyadii soo maaha sideenad u ixtiraameen in guriga kula waan ixtiraamayaa laakiin sodohdayda gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonaysaa kana ana la igu qabaa kale noqotay meherka sida inantan tiri waa run wiilkii inantii markay ismehersadaan ama waxaaba jira wiil inan iyo inan isku tola oo labada reer bad isgaranayaan waxa la oranay inantaa ha guursan inantaas waa inan xun sida kulli horta anu waxaan oran karaa inanka reerkooda ma wada saameyn karo laakiin dhibaatadu waa inanka hooyadii adiga hooyada ma jeceshahay walaalka inantu guursada inay sidaas oo kale ula dhaqanto دمتي يعني صدقها ترى هذه لما تشوف كرتو ما تشعلي لكن قفك بنا آدم كهدي هبي أنا كواين تسوي يدي تقول جدي سكتشوجسة لكن أنا وحن من سنة هاي إلا قاعدة فصح والله إنا قبضها ويسوق ورسدي قول جانا كمسؤولة marka wuxuu ku soo kordhnay xitaa walaalkii haduu imana weyn ugu dhahaa walaal habi ma ku tahay mas'uuliyaddu ma lahayd tii guriga rag u qaadi jiray mas'uuliyadiisu waa shaqada dibadiisa ayuu mas'uul ka yahay laakiin kan gurigan uu igu qabo anaa ka mas'uula wixii soo galay wixii ka baxay anaa ka mas'uula waa aad ma santaas haye aniguna waan ku raaxsanahay magacaygu ayaan Xuseen anigu waxaan oranayaa horta islaamaha gurigooda ha joogaan chaadna yaalana noqonin because waxa weeye anigu waa la soo guursaday guur ma garanayo markii horena maan soo marin waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما شرح وعذراك دعاء وعذراك دعاء عجيب على عجيب 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 الله محدقك يسبدري الله محدقك يسبدري الله محدقك يسبدري الله دقك يسبدري waxaan sheeko ku maqli jiray ilaahay baa igu og bancaaw arkay sheekan ku maqli jiray bari waxaan maqli jiray qurbaha marka la tago waxaan maqli jiray markay qurbaha dadku tagaan waxay tiraahdaa gabadhu hooyaday intaas oo lacag u dir hooyadaana lacagta xabaha u dirinay hooyada lacag waa iska ladan tahay hooyada ay waxba haysataa sheekaasan maqli jiray wallahi sheekadii caawa socotaan arkay cajiib aan cajiib waa gabadhu cajiibsana laakiin karti badana hooyada xitaa hooyada guriga iska joogto iyada problem keentay na hoogta hooyadii soo hooyada ama oo soo hooyada u jeceshay soo muu jecla war dhaqankana waa dhaqan horta shisheeyaan arkaan waxaan arkaa dhaqan shisheeyo la soo guriyay inta la wado la rabo in dadka la baro halka family-gu problem laga abuuro kan dhaqan caadi ma aha kan absolutely kan dhaqan caadi ma aha waxa la dhageysan kara ma anu kulli ma dhageysan karo ilaahay baa ilaahay ma dhageysan karo waxan waayo waxan wax inaga yimid ma aha waa wax qof wax shisheeya la wato shisheeya wata waxan waa la fangareynaya anu isleeyahay iska joogto kulada guriga iska joogto islaan maxay naga soo doonaysaa onagti wargabadhu dhiirana waa dhiirantahay bay aad bay u dhiiranta walaalayaal anu waxaan leeyahay gabaray hooyada marka saa ka dhadhaminayo hooyadu waxay jeceshahay inay la joogto laakiin waxay jeceshahay in hooyadii aan la joogin waayahay dhibta hooyadii leedahay ee ayada hooyadana lahayn maxay ta kale qofku bilaadanka ilaahay bilaadanka uu karaameeyay qof walba wuxuu ku karaameeyay aqligu ku karaameeyay quruxda ku karaameeyay dulqaadka ku karaameeyay qof walba kale xun ilaahay ku karaameeyay aqligana ilaahay dadka ma wada simin hadii hooyooyin xun jiraan xun anigu oran maayo laakiin hooyooyin waliba kuwa si aan raacnay kuwa wiilasha dhala way jiraan of course xabad baa jirta aan badnayn oo marka wiilkeedu guursado u malaysan iyada la guursado ma saarto way jirtaa been ma sheegaysa gabadhaas laakiin kulli ma wada qolkiiba waa 3 ama 2 hooyada xitaa gabadha dhashay way jirtaa wiilku qaatiyaan ka taago garanaysa way jirtaa ayadaba laakiin ma badna hooyada mar walba gabadha dhashay waxay jeceshahay inay taakulayso laakiin meesha waxa laga hadlayaa diiniina dhaqan ahaan qofka hooyo xun way jirtaa labada dhinac dib badan xun ma oran laakiin dib badan
laakiin meesha waxaa laga hadlayaa dhaqanka laga hadlaya dhaqan baa laga hadlaya waxaa liismaan wax tiraa maama waxay jirtay in yiraahdo ninkaad jeceshay aygiisana jeclow miya ahay wax ma saasa ninka haddaad jeceshay waana hooyadiina jeclaata jacayl inaad jeclaatidna khasab maaha laakiin ixtiraam iyo dhaqankii ixtiraam sida hooyada aad jeceshay inuu isagun u ixtiraamo adna ixtiraam waayo caruurtaadu ayideed weeye ninkaada hooyadii weeye waa faamilkaagii ajar baaba laga helaa in faamilka la xiriiriyo qaraabo xiriir iska xidhaada qaraabada in la xiriiriyo anu ma garanayo marka sidii gaalada maxay caruuraha dhaldhalaan bay iska eri jireen waxay waaweynaadaan sheekadii bay wadaa marka gabadhan waxaa leeyahay ilaahay usoo noqo waxaan dhaqankan ma garanaysaa westernkan naga daa haddii lagu guursadana gabar yahay odagaaga ehelkiisa soo dhawee isna kaaga soo dhaweey ma garanaysaa waayo xaq waaba xaq sax caruurtaada hooyo iyadeed ina erida xaq maaha oo hooyada aad soo dhaweysatay xaq maaha marka waxaan ku leeyahay anugu waan la yaabay runtii aad baan uga yaabay wallahi aad baan uga yaabay waan iga yaabisayba waxay ku leedahay saanta gurigeeda iska joogto maxay kasoo doonaysaa gurigeyga anaga u baahan inaan isla ciyaarin anaga u baahan inaan waqti wada qaadanin oo hadday ku soo booqato kuu timaado hooyo iska warramaysa baa tihiin oo in soo booqato hadday rabta dhowr cisho in la joogto hadday rabta guriga iska degto qol iska degto ma dhib bay leedahay dhib ma laha hooyadanba waad jecesha in inta kuusoo degto qolkaa kuu degto cuntada gegeysato la sheekaysato ood dharka u maydmayd waati allahu akbarey war dadkan gardarro badanaa war gardaradan gaalku noo keenay maxay tahay war gardarro gaal noo keenay baan arkaa anugu war diintiioo la dhaqan guurinayo war dhaqankeeniyo la guurinayo war meel walbana la kaga soo dhacay ilaaha noo sakri amuura war kuwaan qurbaha ka yimid maaragtay shar bay wadaan ilaahay shartooda naga qabto shartooda allah naga qabto shar bay wadaan ilaahu shartooda ku celi anuu shartooda allah ku celiyaan wax kale oran maayeen barmalila daawada horta sheekadaas waad arkayseen wixii meesha ka dhacay anigu gabdhaha talaan siinayaa usoo noqda diintiina iyo dhaqankiina wasalaamu calaykum wax cusub ma garatay marka waxaan rabnaa inaan anaku aan isla joogno labada yada horta aan isbarano yani waxaan rabnaa inaan barano guurka siduu yahay because challenges badan buu la imaanaya markay dadku isku bataan weliba sodohda markay timaado cuntada comment ka samaynayso milix waa bilaadhadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha cuqdad baa imaanaysa waa la is aamin dhibaato badan hooyada inanka dhashun baa diidan tahay mise ilaa hooyada baa diidan tahay hooyadina haska joogto gurigeeda because waxaan waa wax cusub ya waxaan rabnaa inaan challenge-kan waa marriage weeyaan waa wax aad u culays waa sheekadii exactly waa sheekadii qurbaha barta taagan keligaa noolow yaan idinku iman waa sheekadii la soo koobiyey baa xagga la keena ku soco badan midda kale adigoo xaajigii oo soo shaqeeyay maantoo dhan waxa gurigii baad imaanaysaa anigoo afkii taagi waayo because hooyada ayaan isdinay ama wax naga dhacmaray maalintii during the day inay guriga kula noolaato waayo markuu deemka gurigeyga keenayo hooyadii war waxaan ma dhageysan karo anigu waxaan ma dhageysan karo kulli waxaan ma dhageysan karo waxay ku leedahay anigu afka taagu imaanaya anigu hooyadii baa isku dhacnay oodii hooyadii maxaa isku keenaya waa yaabe bala ayadii hooyadii maxaa isku keenaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كبر من وضوء ذكرين نوضي. السلام عليكم.